taariikh 28 bishii 8 dowladda Kenya waxay mamnuuc baahsan ay ku soo rogtay bacaha. waxaan ka soo qaadanaynaa hal qayb oo ka mid ah dhibaatooyinka bacda ay ku keenaan bii'ada. marka Soomaalidu waa dad xoolo dhaqato ah, arrimaha xoolaha ku saabsan iyo bacda baan ka warramaynaa insha Allah taala. halkani waa la soco channel, waxaan idin soo gudbinaynaa wax kasta muhiim ah walaalayaal. la socod wanaagsan. Soomaalida hilibka way jeceshahay, laakiinse weligaa ma isweydiisay xoolaha iyo bacda maxaa kala haysta. bal eeg, waxaa la ogaaday in xoolo badan ay ka buuxda calooshooda baco. kawaanka loo yaqaano Nyongara Slaughterhouse ee ku yaala xaafadda Dagoretti ee magaalada Nairobi ayaa la sheegay haddii lagu qalo 100 neef oo lo ah 15 iyo 20 ilaa 20 ka mid ah xoolahaasi waxaa laga helaa calooshooda bacaad iyo aad u fara badan ayaa laga soo qufaa. xilli aan sii fogeyn, koox culimada dhakhaatiirta xoolaha oo ka socotay hay'adda qaramada midoobay qaybta cilmi baarista ay ku sameeyeen saameynta ay bacda ku leedahay xoolaha nool ayay ku ogaadeen in neefaf badan oo lo ah laga helo calooshooda 20 nooc oo bac oo kala duwan. waxaa lagu sheegay cilmi baaristaasi in xoolaha ku nool caasimadaha iyo agagaarkooda inay u badan tahay xoolaha liqabacda. xoolaha baadiyaha shisha ku noolna waxaa la sheegay xilliyada abaarta inay bac badan ay liqaan. waxaa suurtagal ah inaad isweydiiso, marba haday neefka caloosha u fadhiisanayso maxay iga galay, waayo caloosha aniga badan ama cuni. dad cuno way jiraan, laakiin badan lama cuno. waxaad ogaataa inay ku saameyni karto bacda uu neefka cunay si dadban, waayo neefka waxa loo keenay waa macaluul suuqa. walahi waxay leeyihiin 4 calool. calooshaas mid ka mid ah ay bacda ka buuxsamaysaa, markaas caloosha isxidhaysa. xoolaha markasta wuxuu isku maleynayaa inuu dhargan yahay, laakiinse dhab ahaantii ma dhargano. si fiican lama ogaana sida dhabta ah ay ku saameyn karto hilibka aad cuntay ee neefka bacunka ah, laakiinse waxaa la aaminsan yahay in kolba sida bacda uu neefka cunay ay suntiisa u badan tahay inay adigana ku saameynayso. marka waxaan ugu yeedhayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaba inay ka fikiraan mustaqbalka xoolaha ay haystaan, iyo inay bal waxaa jira dowladda Soomaaliya kulli waa dowlad laciif ah, laakiin wacyigelin waa la sameyn karaa. geyiga Soomaalida waxaa kamid ah dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, wadanka Djibouti, wadanka Kenya horta ma wajirayso insha Allah taala, sababtoo hadda xataa waa laga laayahay bacdi meel kasta dad kale isbaac ma helaysid. qofkii haystana waa la xidhayaa, waliba ganaax adag ayaa lagu soo rogay oo 4 milyan oo lacag Kenya ah, mise 2 sano oo xadhig ah. marka waxaas arinta loo sameynayo waa danta dadka iyo bii'ada ilaalinteeda. marka waxaan ugu baaqayaa qof kastoo mas'uul ah inuu isku dayo ummadda in wacyigelin loo sameeyo marka koobaad, marka ugu dambeysna in balgeyiga Soomaalida oo dhan laga mamnuuco bacda. waa sun aanan baabi'in. haddii ay warqad meel ku dhacdo way dhamaanaysaa, mudday ku dhamaanaysaa, laakiin bacda waxaa la dhahaa non biodegradable, waa wax aan weligeed baabi'aynin ilaa qiyaamo saaca bay saas u joogaysaa. marka dhibaatooyin ayay dadka ku haysaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.